السلام عليكم ورحمة الله فيسبوك فاميلي جمعة مبارك جمعة وناكسن عيد وناكسن ما شاء الله تبارك الله إنك استمعت أنت مالنتي أفراد وحرجينا يا دمانتينا نود يا برواقي يا بشبشكو عيدين إلهي سبحانه وتعالى وحين نكبر يا عيد هذا كله إنه نوجرسي عمري عافيمات إيه عبادة صوبا إن شاء الله سيد عادي نوع أحد مكسوق عشان فضلا هوسك سوق ولا حاجات دول ذاك جوكتان حاجات صوب ريسان أنا جانا وودا الجناية إن شاء الله أوكي ما شاء الله تبارك الله مردونا واحد اسبرانيسان martidayda qaaliga maanta already shaashadaad oga jeedaan insha Allah laakiin marka hore fadlan hore ka wadaajiya hoosna ku soo qora xagee dunida ka joogtaan xagee nooga soo biiraysaan anigana waa wadaajinayaa sidoo kale aad iyo aad baan kaga raali gelinayaa inaynu ka soo daahnay markasta waxaynu jecelnaa waqtiga inaynu doorno haddana waxa waaye marba waxbaa dhici kara waqtiga adduunka saas iska ah marka naga raali ahaada idin leeyahay insha Allah ما شاء الله welcome already waxaan u jeedaa dhowr qof oo ku jirto ma sha Allah fadlan wadaajiya hoosna ku soo qora intee dunida ka joogtaan xagee nooga soo biiraysaan ما شاء الله تبارك الله walaashay Zahra Hussein soo dhawow macaanto welcome ما شاء الله تبارك الله walaashay Asiya soo dhawow macaanto ما شاء الله Zahra tuning in from USA I love it welcome meelkasta dunida ka joogtaan jawi kasta ku jirtaan waqti kasta ku jirtaan waxay idin leenahay soo dhawaada ma sha Allah tabaaraka Allah waxaan toos u abaareynaa maadaama in ka soo yara daahnay yaa salaanta iska socoto horena ka wadaajiya insha Allah bi idnillahi kariim waxaan toos u abaareynaa hadeertaan martideeda qaaliga meesha uga jeedaan walaashay raxmad salaad from Saudi Arabia soo dhawow macaanta welcome Faisal Xirsi welcome soo dhawaada dhamaantiin si toos baynu u gudagalaynaa maadaama in ka soo yara daahnay برنامج كلنا والله إن شاء الله 20 دقيقة كدب عمل 25 من كدب إن شاء الله صوت بينو أبارنا هلكا وحا وجدا ولا شيء رحمة يوسف عوالي ما شاء الله تبارك الله أو كم إذا تيم كيجا ولا لها رنت وقف فرعون ما شاء الله تبارك الله مرة بينا نكهر أيضا لو داعي الشيء كذا إن شاء الله إسفاء في هنا يسو حدو تندور سؤال ويدين دونا إن شاء الله بالله كريم welcome انت كوريسن ادي كان ستيو وداجيه سو دواده رحمه كسو دو فيسبوك لايف كيغا معانت welcome ما شاء الله افراح سعود حسن ما سنتهي boqolkiiba boqol sida wanaagsan ee halkaan markasta aad noogu soo joogteed dadkaaga aad wax u fahansiinayso wanaaga iyo waxaan ku sharafta iyo quruxda aad company-geena aad ka heshay mar walba aad la wanaagayso waad ku mahadsan tahay martida sharafta leh soo dhawaada dhammaantiin meel kastoo dunida dhaclada aad ka joogtiin maydhigayga soomaalidayda aan ku faano soo dhawaada ilaahay salaan qiimo iyo sharaf leh ayaa kiish laydinku soo shubay nin walba halkuu joogo waxaan salaamayaa oo kale tiimkayga my team oplist global my family waa dad isku xidhan family aan nahay taa ogsoonaada idinkuna nagu soo biiro oo family nala noqda marka maasha Allah tabaaraka Allah maanta cilad farsamo nagu yar dhacday raali ahaada waan idinka raali gelinaa boqolkiiba boqol waqtiga maalmaha dambe aan si fiican idinku sharxi doonaa insha Allah tabaaraka Allah laakiin maanta waan soo yar koobaynaa sida u gartaa magacaygu aniga waa Raxmo Yuusuf Cawaale waxaan ku noolahay wadanka Norway waxaan haystaa caruur badan ما شاء الله إلهي بيسكله يولي بوحي يصير لين أيام حنقول أنا هو يوهاي يا بابا لا بابا مركا إن ما شاء الله ما توحني دين وذا جاي هرتا إن كومباني جايجا أن محيدا سنان وصاقلي يا هل كان قبل أبي إن ما شاء الله تبارك الله هرتا وحن صاقلي أنا كومباني جن محيدا لبض يكون يلا بعتنكي بشي سجالات إن سببتها هرتا أنا صاقلينا وحي هاي dhaqaale iyo caafimaad waliba marka u horeysa maxay hedan waa goojadaasi ma sha Allah tabaaraka Allah waxa soo gelisay caafimaadkayga aan ka dareemay markii horeysay aan inan ka iibsaday iyadoo la siinayo 700 koron oo nooshka ah oo u dhiganta lacag $70 taas markaan aan xabada ka iibsaday ka bacdina waxaan inan bayla wadaagtay maabtana waxaan go'aansaday inaan soo galo marka 2009 markaan soo galay horta aan ku bilaabay maxaydan goojadayda si wanaagsan waxaan lahaan jiray luga xanuun waxaan lahaan jiray madax xanuun waxaan lahaan jiray maxaan ku raahdaa dhabar xanuun
mar kastaba waxaan ku yidhi dee hawshii xataa guriga oo igu adkaato xataa aan qabsan kari waayey laakiin markaan aan bilaabay maxay ahayd fountain of lifekaasi wallaahi aad iyo aad waxaan ku yidhi wax kastaa waxa uu iga degay oon dee stresska xataa iyay hoos kaaga dhigaysaa waayo waxaan ahay hooyo maxay ahayd caruur haysata haddana maxaan ku idhahdaa dee dhinacna ardaydka ah dhinac rabta inay dhaqaale ay samayso oo dee waxaan ku ay dee wax kusoo kordhisa reerka ayaan rabtaa marka maasha allah maxay ahayd horta maxay ahayd goojadani halka ay ka timiday marka u horeysa waxa weeyaan geed ka baxa waddankan aan ku noolahay Norway magaalada maxaan ku idhahdaa caasimadda labaad Bergen Spruce Tree baa la yidhaahdaa marka maasha allah waxaana sameeyey companyga aan ka mid nahay familkayga ah oo jooga waddanka Canada wiil la yidhaahdo maxaan ku idhahdaa Ramin yogeena maasha allah Ramin aamin baan idhahdaa mar kasta marka maasha allah Ramin baa sameeyey oo maskaxdaasi keenay ay dadka geedkaasi u baxaaba ay garan waayeen ayuu isagu gartay inuu dadkiisa ugu faa'iideeyo uu caafimaadna ay ka helaan ay dhaqaalena ay ka helaan marka anu markaan aan soo galay maxay ahayd 2020 bishii maxay ahayd 9aad baan soo galay package-kaygii u horeeyay waxaan sameeyey aniga naftayda ayuu ku baxay sababtoo ah waaban diidaba inaan iibiyo markaan arkay caafimaadka ay leedahay goojadaas aan firfircoonida aan ka helay basaskii waxaan ku yidhi aan taag darre aan dee lacaga jiidayo oo iyo baskii aan eryanay markii dambe waxaan ku yidhi orodsi sii daynayo dee waxa ugu wacan waa fountain of lifeka hablahayga qayb dhan baa waxaan ku marsata oo maxay ahayd halkaasay wada joogaan iminka wejiga way marsadaan way nadiifisaa wejiga finanka oo dhan way ka dhuuqdaa madmadow bay ka dhamaysaa wejiga dhalaal bay ka dhigaysaa nadiif marka qaarkeed waxaa jirta marka winterka waxaan sameeyaa anigu intaan halkaa baabacada aan ku shubto ayaan in yaroo karima intaan ku daro ayaan wejiga saa ugu dhaashadaa mar kasta dadka qaarkood waxay ku idhahdaan wejigaagu saraxma u dhalaalaya maxaad marsataa dadkan iskuulka wada dhigano sirtaasaan ku idhaa sirtaasaan marsadaa waa fountain of life mar la cabo mar wejigaad marsato mar timahaad marsato intaba maasha allah tabaaraka allah ninkii waxaan ku yidhi inoo sameeyey ee fikradda inoo lahaa horta ilaaha raxmaanka ah raaliha ka ahaado waa nin muslina oo maxay waddanka Ciraaq u dhashay maasha allah tabaaraka allah dad badan buu maskax badan yahay dhakhtar badan oo doctor isku sheegay ka maskax badan yahay marka halkii waxaan ku yidhi package-kii u horeeyay markaan sidii aan anigu kaligay shaampadii hadday tahay daawadii maxay cadayga hadday tahay oo aanan u baahaninba wallaahi been idinma sheegayo idinma faaninayo ilkahayga waxa igu dambeysay kharashkii baa iga hadhay waxaan bixin jiray lacag ilaa $70 ah oo weliba waxaasi eegan deel bay yidhahdaan waa wax yaroo calaashan dadka masaakiinteedee ay bixiyaan laakiin inta kale ay dowladda ay naga bixiso marka lasoo mariyo ilkaha laakiin daawada yara cadayga inta haleeg ayaa haddana ilkahaygii waxaan ku yidhi aan kharashkeedii aan ku ilaaway marka wixii oo dhanba anaa isticmaalay run haddaad doonaysiin hadday tahay daawada cadayga hadday tahay maxay ahayd goojadaydii saaxiibaday hadday waxaan ku shaambadii timaha tahay oo weli shaambadaas wuxuu ahaan jiray kuwii ragga laakiin hadda kii dumarkaa lanoo keenay oo timaha saa kuugu bixinaya maalinka maalmaha kamid a way dhici kartaa ina dumar keliya intaad isku soo geshiin aan timahayga wallahi idiin faawiyo inaan been idiin sheegin timuhu way bataan way baxaan dhalaal bay xataa u keenaan wiilkayga Shucayb baa la yidhaha halkaasaan soo fadhiisanaya maalin aan dheerayna waxaa jirta timihiisa waa dadka wuxuu jecel yahay inuu timihiisu mar kasta sida afrikaanka intuu badiyo amerikaanka badiyo u baxaan wuxuu yidhi aad baan wax iskaa gartay buu yidhi intay dhalaaliso ayay weliba bixisaa buu yidhi xataa wejigana uu marsadaa marka aniga lugu xanuunkii waan ka nabad galay maasha allah dhabar xanuunkii waan ka nabad galay maasha allah madax xanuunkii kiniinadii aan qaadan jiray ee 800 ee maxay garam iyo 1000 garam ay naagta isku keediri jirtay maxay dhakhtaradaydu wixii waan ka tanaasulay waxaan u tanaasulay goojadayda maran cabo maran wejiga marsado
maran maxaan ku dhahdaa aan timaha marsado xataa waxaa jirta kole waxaan jecelnahay kimilkada inaan iska marsano ee dawooyinka kimilkada marsano oo ilaa yaraanteeniba laynagu qaatay haddaad taasi laakiin aad barato waad ilaaweysaa iyo kariimada xataa sameeyo kumpanigeegu kaale arag inta haddaad isku darsato maasha allah tabaaraka allah waxaa jirta xataa inaad aad qofku markuu yahay 50 kiilo oo ka badan yahay aw 10 cabi karo haddii uu ka yar yahayna meelaha 5 dhibcood oo cabi karo amba 3 dhibcood bay waayo ma hadaan tamar aan haysan inkastoo ani wax allaali waxay ku yeelaysaa baa inay jirin oo mar walba ma anugu saan aan u qaato 10 dhibcood baa aroortii cabaa 10 dhibcood ma duhurkii cabaa haddaan doono markaan doono waa iska cabaa wax allaali waxay ka dhimaysaa ma jirto yacni wax yaro aan qaraan ahayn haddana yar hayay leedahay laakiin waxaas waad baranaysaa laakiin caafimaadkaaga ka wanaagsan markasta waxaan idinku waarinayaa inaad nagala soo qayb gashaan caafimaadkii daryeelkii maxaan ku dhahdaa nadaafadii wax walba kumpanigayga waad ugu imanaysaa waan ka sii waday baakashkayga halkiiba ku dhammaaday caafimaadkaygii baan waxaan ku maasha allah tabaraka aan ka helay ilaahay inta ka sokaysa waxaan ku dhintay maasha allah waan ilaahay baan ugu mahadnaqaa inta ka sokaysana kumpanigaygaan ugu mahadnaqaya de maanta ummadii oo dhan waxaan ku yidhi dad fara badan oo xanuunsanaya dad baa imiga raadinaya oo waxaa jirtaa laleeyahay goojo yaroo dhibcidhibaca dad baa raadinaya oo maxaydan insha allah waa aan tusi doonaa meel kasta facebookyada waan dhignaa maxaan ku dhahdaa snapka waan dhignaa meel walba waan dhigaa maxaan u dhigaynaa anagu waxba ma rabno inaan waxba ka faa'iidno oo annaga aan usoo kordhino laakiin aan kordhisano laakiin waxaan rabnaa waxa anagu aan ka faa'iidnay hadday dhaqaale tahay iyo hadday caafimaad tahay waxaan jecelnahay inaad nala faa'iidaan ood idinkuna nagu soo biirtaan taasaa la idinka rabaa mar kasta waxaa loo xiiqaya halkaa loo soo istaagayaa waa dadkayaga dhiigayga ama ku faan marka allah maasha kasoo wareego ma sii wadaa waa saacadahay akishkii aad markaan dhamaystay waxaan haddana yar hakiyey 4 bilood baan hakiyey oon aan maxayden kumpanigaygii aanan korna u eegin hawshaydii kale yacno dee aan ka horreysiiyey laakiin waxaan arkay dadkii oo i wada dhaafay dadkii oo waxaan ku yidhi loo mashxaradayo dadkii oo ilduwan keenaya dadkii oo tuul keenaya dadkii oo waxaan ku yidhi kooba mid laleeya waxay keentay maxaan ku idhahdaa mjrs bay noqotay hayaa oo meesha maxaa ku dhigaan ku idhahday sug hawshaydii dhanba intaan kasoo jeestay ayaan kaa usoo jeestay ifraax maxay leedahay tolo maanta maxay sheegaysaa maanta ifraaxna dhegaysto uun saan dhagaha u dhugu dhigay u dhuuxay u dhegaystanay waxa haddaad dhegaysato mar kastaba waan ii sheegaya waxa haddaad dhegaysato oo maskaxdaada aad usii dayso walaa caafimaadkaaga walaa dhaqaalahaaga wax kastaba waad maxay hadeen waad marinaysaa maasha allah wuu kugu soo dhacaya laakiin haddii aanad dhegaysanin halkii kama qaadi sidaalkiibu ku oolaya marka waxaan damcay inaan waxay dadkaasi keenaan baan keeno marka alxamdulilah rabbilcaalamiin hooyaday iyo inantayda markii u horeysay garbahayga istaagay haddana intii kale haddana waxaan ku iri tiim badan baan yeeshay waxaan kusoo gabagabeeyey dee mjariska dee iska badaa hadalkeega waxaan dhowr jeer baan keenay oon ku guulaystay oon intaasoo alaabo maxay ahaydeen lacag la-aana aan helay oo intaasoo waxaan ku iri dee adu de taajir camal de wax yar baan u jiraa taajir marka insha allah waan noqon doonaa 2 million mar kastaba intaas markay isku soo biyo shubatay haddana waxaan sameeyey inaan keeno LD1 oo aan ka qayb galo dadka toddobaadkiiba ay u soo dhacayso commissionka marka meeshan ciyaar maaha waa waxaan ku iri yaan lagaa badin yaan lagaa horeyn waxaan ku iri waxaan jecelahay inaad mar kastaba aad ku soo dhiirtaan ood nala ogaataan caafimaadka wax walba ha isoo dhanina dadkan waxbay danaysanayaan anagu ma danaysanano laakiin waxaan jecelnahay siduu ninkaas u fikiray ugu keenay yacno dad badan oo waxaa jirta kiniinada ka qaada allergis ku leh laakiin kan wax allergisa ma yeelanaysid waad cabaysaa waad ku maydha waad marsanaysaa xitaa shaambadaad ku darsanaysaa si kastaad samaynaysaa wax intaa ay leegtahay ee yartay haddana tahay ay leedahay way aad iyo aad u wanaagsan tahay marka mar kastaba waan idinku waarinayaa ha moogaanina oo ha ka maqnaanina tijaabiya nala eega
dee waxa u idinkaa maasha allah tabaaraka allah waan isku soo noqon doonaa marar kale oo badan maanta waqtigaan ugu yar ما شاء الله آد مع أنت جزاك الله خير سيد وناكسر النص كوفتي رنتي ندير قلين إنه وصيص ما شاء الله تبارك الله وحنا لو ذاك إنكم بني هذا سنة كمية كاقدي من رحمة مع أنتم sagaalkeyga dee kasoo qayb galaan leeyahay martidayda xataa haddii joogaan norway waxaan rajeynaya inay kasoo qayb galaan waaniga okay so waa sagaalka bisha sagaal waa September ku buuxsan sanad Soomaa haduu Ilaahay idmo November bay buuxsanaysaa sagaalkeyga laakiin xafladda waxaan ka dhigayaa 19 waayo dad dibadda iga imanaya Denmark ka imanaya Jarmalka ka imanaya Suudaan ka imanaya xataa Sahara Fani way noo imanaysaa ma sha Allah Nasra Ali Bara way imanaysaa dhamaan waxaan ku dhawaal iskugu imanaya meesha wow aad ma anta halkaas soo istaag shaashada igu ogow kulligeen garabkaagana maalin ismacanto su-aasha waxa waay marka hadda sanadkii waxyar kaaga dhiman haddana intaasoo guula ayaa soo hoysiisay inaa intaasoo goor MGRS keentay gaarigii keentay LD1 tahay keentay weekly commissionka keentay su-aasha marka laga yaabo dadka inay ka dhex baxayso waxa waaye raxmo ma intay maanta soo gashay ayay heerkaas gaartay mise waxaa jirtay jid dheer ah iyo qodxo badan ee ka soo gudubtay oo maanta heerkay joogto ku gaartay maxaase kula talinaysaa walaalaha laga yaabo inay ama heestaan ama ku dhici doonto caqabo adiga aa ka soo gudubtay macanto maasha Allah ifraax waad mahadsan tahay horta caqabad la'aan haba sheeginba waxa lagu oranayaa maxaan ku radaa kumbaniyada had iyo jeeraale waxba lagama faa'iido maxaan ku raahdaa dadka way cunaan lacagun bay ka qaataan laakiin anu maan arkin de wax lacagu naga qaata anagu waxaan aragnay lacagtaadii hal mar kaliya haday ahayd waxaan gelinay $1,400 $1,400 inteen alaab ka helnay inteen caafimaad ka helnay inteen waxaan ku wanaag ka helnay ma sha Allah tabaarakallah nadaafada sheegin timaha maxaan ku raahdaa ha sheeginayaan caafimaad adu wax walba laakiin caqabaduhu way iska yimaadaan waxa xataa lagu oranayaa waxba kama helisid iyo maxay ahaydeen waxaan yaa iibsanaya dadna way kula shaqaynayaan way kugu dhiirigelinayaan dadku way laba u kala baxaan dadna waa dadku waxaan ku garab istaagaya oo ku caawinaya oo maxaan ku way hablo badan ma sha Allah maba tirin karo inta aan MGRista aan noqonayay iyaga ay caawiyay oo markaan u baahday in maxaan ku radaa adu la keeno $200 Canadian tuka alla wax laga iibsado online ta way igu caawiyeen dhamaan hablo badan oo wax laay maantaan halkan aan ku soo koobi karin in badan oo waxa ku wari iska yar istaan way jirtaa laakiin ta dhiga looma dhigo anu dhigna uma dhigo dhaga sharaq waan ku wari ma jirto anu waxaan ku wari saasaan u socdaa marna wada maanta farxa ka soo noqday ku tiraada halkaasi ina horta waan ka warkeenay aan ku sii soconaya marka way iska jiraan caqabad laakiin waa laga gudbaa وانا سكه غدبني ما شاء الله تبارك الله صورada aad haday maga dad badan ba wallahi heer bad ka dhiraada markay sawirada ka arkaan moodayna Barack Obama la sawirana marka halkaas soo gelisaan aad macaan hooyo macaan waxay tiraahdaa hooyo bil aadanka waa shantaada farood oo kala shantaada farood see u sineen ayaysan u sineen soo qof waliba waa la kulmaysaa waa runta enerjigaaga maxaa la geliyaa inta wanaagsan inta kalena maxaa la dhahaa jazaakallah khayr nawaday hadhowti iyaga kaa daba imaan doona saa sheegtay markay sawiradaada iyo guulahaaga arkaan maasha Allah tabaarakallah su-aasheeda ugu dambaysa macaanto inagoo waqti ka faa'iidaysanayna waxa waaye markay noqoto dad hadda waxaa laga yaaba walaalo badan oo ku daawanaya maanta gadaal ka fiirsan doono kuwa ka daawan doono Ifraax Essential YouTube-kayga maxaa talo iyo tusaale kaga tagaysaa qofka walaal ah oo maanta gurigiisa joogo ama laga yaabo inuu shaqo joogo laakiin jeclaan lahaa sidaadoo gurigooda iyagoo joogaan ubadkooda korsanayaan in ay haddana dhaqaalo sameeyaan oo walacaada dhaqaalo maanta kaliya aysan ahayn oo dhaxalgal ay yihiin ciyaalkooda uga tagi karaan maxaad macaanta talay tusaale usoo jeedinaysaa adigoo walacaada abbaaraya markay noqoto waxaa la dhaho stay at home economy oo ah dhaqaalaha guri joogta ما شاء الله يفرح ما هتستند والله هرتا أنا وحنا كلها ترين لها إن أي قاتان طريقة هرتا مرني إن يجو جريجو أي شوغان أي يبسن كران
haddaan ifraaxan ku idhaahdo laba bilood waxaan ku idhi maxaadan aniga cidiima caawinin sababta waxaana ii caawinin waxaan iibinayey kuwaasoo kalean iibinayey daawadii gacmaha lagu dhaqo jeermiska waxaan iibinayay daawadii cadayga shaambayadii baan iibinayey wax kastaan iibinayey waxaan ku idhi maasha allah lacagba kamaan waayinbaba qofku xatuu iga xataa sii qaato markaa koontada laigu soo shubayay koontada lacagba lagama waayi jirinba mar kastaba marka waxaan kula talin lahaa maadaama aynu caruur yar haysano aynu rabno inaynu ilmaheena aynu wax u dhigno waayadii hore waalidkeenu ilaa iyo dee wax badan ay ururiyaan oo ay hagbada galaan ama aan dhehee ay dee waxun ururiyaan kumay gaari jirin heer laakiin maanta adigoo gurigaagii jooga oo ilmahaagii casharkii la og oo wax walba la og ayaad haddana aad heerka aad gaadhaysaa waxaan ku dhaqaalihii aad samaynaysaa oo maxaad caafimaadkii ka helaysaa oona anugaan diinay dukaan inaan xataa tima aan kasoo iibsano shaambayada hadday dhammaadaan waxaan dhaha suga haydin qurmo madaxu waana keena dukaan baan haysanaa waayo anuu dukaan haysta dukaan kale kama iibsanayo daawada cadayga wallahi waa kuwa ay wada maqlaya ha soo iibsan inaan ku idhahdaa waa la joojiyay daawo caday oo laga soo iibsado maxaad dukaamada kale waayo anigii baa dukaan leeyahay anigii baa iibinaya waana anu waxayga aan hirgeliyo waana waxayga anigu aan marsado waana waxayga aan horta aan halka ayagoo ii taaltaaloon isticmaalayo xataa lay arkaa marka waxaan kula talin lahaa inay hawshaasi ay naga soo daba qaataan oo guryahooga iyagoo ay fadhiyaan ay caydha kaga raystaan waxay siida waa iska dawirsi caydha wax laga qaadanayo taasaa ku dhaanta ood xoogaaga dhididkaaga maalisad halkaa la fadhiisanayso telefoon baad qabsanaysaa amaanta intaasaan u baahanahay intaasaan baahanahay kaala iga iibso anu qof idiidaba ma jiro haddaan idhahdo maanta $200 ayaa iga iibsanaya oo kanadyaana intay ku noqonaysaa nooshke intaasay ku noqonaysaa lacag ma waan kaa iibsanaynaa qaarna waan u kala qaybiyaa hadday doona qaar baan konton aan idhahdo kaala iibsada marka wax kaa iibsadana maba waayisidaba sidaa u shaqaysta guryihiina ku dhex shaqaysta saasan waa dhaxalgal lacag adduunka intay ay haddaad dhimatana ilmahaagu intay nool yihiin ay ku cunayaan weeyaan markaa ha dhayalsanina waxaa dhici karta beri dhexdii ahayd in la yidhahdo halkeed ka gasheen maxaa companigan halkeed ka soo galnaa intaadna odhan lahaydeen hadda soo gala hadda oo waa ka warkeena asaan odhan lahaa ما شاء الله تبارك الله آدي آد معنته آدي آد وحواية رنتي وحينو كشقينينا ضد بون حضرتان ولي كم براروك سنة ما أنت معنا إهين يكون براروك دونان مركزنا وحلقيا وصومالو عتلا ترادو ومرد قرم ويدي مرد قاري ويدو مالي كلا قفصنا إني وايان because آد بلوغة تجي so حضرتان أنها ولي أردن وارنتا haddayna fiican tahay qofkas inuu ka faa'iidaysto waa intuu ilaahay ugu talagalay dabcan annaga qof kasta ma dhehena ilaa ilaa soo gal dabcan macaamiil badan waynu haysanaa haddaa caafimaadkaaga rabtid inaad ka shaqaysid quruxdaada faashankaaga waa kaasa alaabteenni saasa har iyo habeen ugu xaragaysannahay yacni dhinac walba inaad ka dhisnayd haddaa rabtid waa kaas waxaa leedahay welcome baa idin dhehaynaa waxaa ii sheegta macaanta inay kula joogto macaamiishaada abaaye ka mid ah oo aad jecesha inay nala wadaagto testimonideeda diyaar may tahay inay nala hadasho waa inantaydii weeyaan laakiin hadda way iga yar fog tahay maalinta dambaan soo diyaarin faraaxay markii hore waan u sheegay waxay iyadu isticmaashaa markasta dawada aqalkeeda way buuxdaa wayna ku jirtaa tiimkeena ka mid tahay timaheega timo dheer bay kolka horeba dee ay u dhalatay haddana way marisaa mar kasta waan itusayaa waxaan idin tusayaa hamoodina wax kale inaad barataan qofkii aan hore u yaqaanina uu yaqaanaa kii aan ogeyna inuu barto mar kasta se u eg tahay ayaan idin tusayaa marka wax kale ha u qaadinna qasab annaga waxba kagama dhigano waa run halkay faraax laakiin waxaan jecel lahay inay waxa wanaagsan dariiqa wanaagsan aan marna inay soo maraan baan jecel lahay soma maasha allah aad iyo aad macaanto aad iyo aad jazaaka allah khayr runtii mar labaadii mar saddexaad aad iyo aad kuugu hambalyeynaya kuuguna mahad celinaya sida wanaagsan waqtigaa qaaliga adigoo maanta maalin aad iyo aad howl badan ay ahayd haddana halkaa inoo soo fadhiistay sidii aan noola wadaagtay halkaas sano ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku siiyey waxaa naftaada waxaa la jeceshahay qofka walaalkaa la jeclo marka aad iyo aad kuugu hambalyeynaya كونا محد علينا مع أنت إن شاء الله هذا دور كلمة دو نقصو قبل سنو تكتد واقاسا إن باديجا بايزار حسين وحلا باديجا وحرب باي رحمنا قاتل الله مريكا نجوكتا سو ما حد نلو ذا يكتا مع أنت نقصو حريصا
ها waxaan ku soo xilayaa calaashan haddaan maanta aad tiraahdo hawshu way kugu badan tahay faraaxay ha weligaa hays odhanin haddaad tiraahdo waxaasi ma karaysid weligaa hays odhanin waad karaysaa wax walba waad karaysaa hadda ilaaha raxmaanka waxaan ku yidhi ayaa og maantee saakasan kabahaan gashaday ayaan ku jiraa waxaan isku maray 4 meelood oon kolba guriga haddana imide oon ka noqday oon imide oon ka noqday oon hablihii meel aan geeyey maxay dhahan fardaha lagu ciyaarsiiyo haddana aan ka fikirayey isaan usoo gelaa dadkii tiimkaygii dadkii maxaan ku rahdaa martidaynii si aan haddana aan dee u raali gelin lahayn haddana uga soo qayb gelin lahayn ugu soo fadhiisan lahaa halkaa wax lagu sheegi lahaa ayaan haddana ka fikirayay marka mar kasta waxaan aan idinkaga tegayaa hays odhan waxaa ma karisid yes we can waxay tiri maamalyun iyo inakeygii yes we can bay tiri marka wax kasta waynu karaynaa amar ilaahay kumaan darin laakiin talada ilaahay wayna saarano waa inuu ilaahay maxaan ku rahdaa mar kastaba aynu cuskano waxaan jecelahay ifraax mar kasta markay tiraahdo subxaan allah iyo afkeyga lagama waayo iyo allahu akbar maxaad moodaysaa heer kale wax kale kuma gaarin ifraax waa subxaan allah iyo allahu akbar marka ilaahay haddaad aaminsan tahay oo ilaahay aad isku xidho alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan ku ilaahay wax kasta fudayd bay inoo noqonaysaa wax culusba adduunyada maba jirtaba marka intaasaan idinkaga tegayaa waxaan dee to the billion yaa inoo balana iyo caafimaadkeena آمين ثم آمين معناته آمين ثم آمين إلهي سبحانه وتعالى هاي نقدر الدنيا آخرة كوي يقول ما شاء الله تبارك الله مرة بعد مسدح هذا حكوا لي همبليو جزاك الله خير ضمان ولا لها كجرو ولا شيء أنيسة ولا شيء أمان زهر ما شاء الله باي نعيمة عبد النور وقال له بسوا قارتي فاطمة مولد آليات باي صو سلامنا تيم كيو نو كجران ما شاء الله جوبات سودو معناته ويلكم أكو حاج ويلكم ولا ما شاء الله فتحية حسن سودو معناته هضن سليمان ما شاء الله جويرية ما شاء الله تبارك الله محمد عثمان ما شاء الله تبارك الله آديات بين سلامين دمانتي نعيمة إبراهيم حاجي فيصل الحرسي دمانتي جزاك الله خير بدلنا سيد وناكسن أدو صدق قاطين سيد عادي نو أهد إن شاء الله جمع أول بمركز صار الله فوق بحنو 8 دقيقة كدب هذا 9 دقيقة كدب أكشن لينك يكون صور دقايا كورفية هي ولاشي سمسم عبدا waxaan ka hadlaynaa waxa simaanta dhan walaashii raxmi yuusuf noo wadaagaysay oo nolosheeda intaas bedel u yeelay sidee adiga uga faa'iideysan kartaa insha Allah 12 dariiqo aynu dhaqaalaha u sameeyno uga hadlaynaa fadlan ugu soo biir hadduu ilaahay idmo sidoo kale haddii barnaamijkan aan ka heshay fadlan wadaajiya ugu dambeyn insha Allah waa inoo jimcaha dambe iyo guest ama marti xiisa leh hadduu ilaahay idmo adeed salaamina waxaan kaga tageynaa guul iyo gobonimo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo to the billion insha Allah